أنا قاس أهان هذا أنا مركان سوق سداد بيجوك سداد هالبيت أو سكول هذا متشل ما أنت هدي أنا نقول أنا هالكان سكول بدين مارتي سكولات أن هلينو waxbarasho aan helayno waa bilow rajo wanaagsan gelinaya in ka badan 600 oo qoys mustaqbal lagu sameeynaya caruur aan helin waxbarasho oo ku nool kaamka Farjano ee waqooyi galbeed ee magaalada Caabudwaaq maantay qoysaskan iyo caruurtooda waxay kaga duwaneyd 5 sano oo ay halkan deganaayeen waxaana kaamkan laga dhagax dhigay dugsi hoose dhexe ee Farjano masaajid dugsi quraan iyo hool shirarka ay ku qabsadaan munaasabadii dhagaxdhiga waxaa ka soo qayb galay gudoomiyihii hore ee arrimaha bulshada ee maamulka Caabudwaaq gudoomiye ku-xigeenka guddiga waxa uu qabashada shacabka Farjano ee qurba joogta xubno ka tirsan guddiga ee Caabudwaaq odayaasha dhaqanka ganacsato haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha kaamka Farjano Mahad Cabdullaahi Cali ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay dhagaxdhigan waxaan maanta halkan isugu nimid oo munaasabadan loo sameeyay ballaaran oo quruxda badan oo waqtiga iyo maskaxda iyo juhdiga dadkii soo abaabulay ay galiyeen inaanu ka daahfuro ama ka dhagax dhigno iskuulka ama dugsiga hoose dhexe ee Farjano degmada Caabudwaaq ujeedada ugu weyn asugu waa saas qodobka labaad waxaan rabnaa cid kasta oo arintaas ay qusayso inaan la wadaagno maqal iyo muuqaalba dadku waa islaam waa ehel waa muslim waa wada dhashay wuxuuna wadaagaa wixii ma taqaanaa nacfi u sameeynaya oo walaaltinimada iyo islaamnimada ku wanaagsan uu wadaagaa taas waa intaas talabaad waxaan rabaa inaan ka warbixiyo ADB-gan sidii uu ama ku abuurmay ama waqtigii meesha uu deganaa ama sida ay soo mareen markaan taa ku dhawaado waxaan maleynayaa 2016 dadkan waxay ahayd dad reer guuraaya xilligii ay abaartu dhacday oo waqtigu adkaabay ahayd uma sahlana oo ma awoodaan dadkaas inay waxbarasho ilmahooda geeyaan ma awoodaan ilmahooda nolol fiican oo macquul ah inay ku noolaadaan in 421 qoys ba ADB-skan deganeyd waxaa jiray ilaa 250 dad ah oo deegaanka wax ka degan ba iyana jira oo ku dul nool dadka ama ADB-ska regionkiisa ku nool dadkaas waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin waxbarasho iskuulka hoose dhexe ee Farjano ama xaafadda Farjano ama ADB-ga aad baan ugu faraxsanahay waa wax weyn oo faa'iido ah waa wax inoo soo kordhay waxa inagu adkayd ilmahanagu intay ka tagaan halkan oo 3 kiiloomitir ama 4 kiiloomitir ay socdaan magaalada inta tagaan inay wax ka soo bartaan ma noo suurtagali jirin baahidii noocaas ahayd waxaan rajaynaynaa inaanu ka bixi doono wax badan oo nacfiya oo faa'iido oo waxbarasho leh oo deegaanka ku soo kordhay baan u aragnaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga Farjano Cabdiwali Maxamed Daahir ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan qof kasta oo ka qayb qaadanaya ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha Farjano laga dhagax dhigay ee kala ah dugsi hoose dhexe masaajid dugsi quraan iyo hool shirarka lagu qabsado waa 621 qoys ba meeshan oo la dhigi karo 4 square kilometers degan qoysaskaasayto ay waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan masaajid ku tukadaan ma haystaan masaajidka u dhow waxa laga yaabaa inuu 3 kilomitir jiro sidoo gudoomiye Mahad uu yiri 5 sano ay halkan degnaayeen waad garan kartaa 5 sano ilma aan wili wax baran kii ugu yaraa inta yimid 5 jir maanta 10 jir weeyaan waxa laga yaabaa inuu san waligiis iskuul tagin ama xataa uusan u helin fursad uu xataa ku dhigto dugsi taas annagu ka jawaabayna baahidaaseeto sidaan u iri dhalinyaro u dhalatay gobolkan degmadan baa waxay go'aansadeen bal inay wax ka qabtaan hawshaaneeto runtii anigu kamaana mid mahayn dhalinyaraas marka koowaad dhalinyaro isku timid bay ahayd oo baahidooda ka hadlayo baahidii bay ii sheegeen markay ii sheegeen baahidii aad iyo aad baan uga danqaday anigu way ii cuntami weysay in cunug Soomaaliyeed oo 5 jira ama 6 jira uu waxbarasho ama xataa uu ku dhigto goob quraan uu waayo taas anigu ka turjumayo su'aal baan isweydiiyay su'aashaas waxay ahayd maxaa anigu qaban karaa markaasayto waxa aan qaban karay waxay ahayd in wax ku taakulaysto laakiin waxaan ogaaday taakuladayda in halkaas ku dhamaanayso aysan wax kala keenaynin waxaan sii go'aansaday inaan ka mid noqdo guddiga qabanqaabada iyo dhismaha guddiga Farjano nasiib wanaag waxay ii doortay inaan noqdo gudoomiye ku-xigeen intaan ilo inaan xusaan rabaa gudoomiyaha naga Cabdi Qafaar
oo reer Norway oo runtii si fiican oo diirad leh ee noo hogaamiyey oo halkaana muxuu ahaa bahalkii na keenay maanta intaas ka bacdi haddaan idiin soo qeexo Farjanno dhulkeeda wuxuu ka kooban yahay 15 boos 15taas boos waxaa laga iibiyey gabar deegaana oo halkan degan nasiib wanaag 3 boos ayay ku sadaqaysatay barnaamijkan 3daas boos ay ugu tala gashay in dugsi quraan iyo masaajidba laga dhisay insha Allah inta kale oo 23 boosna ay noqoto parkingkii iyo gymkii iyo meeshii ilmaha ay ku ciyaar lahaayeen iyo in laga dhiso iskuulkii hoose so taas waxaan rabaa intaan ilo inaan xuso walaasheen ayadana ajir xaraad ka siiyo so walaalayaashay meel kasta aad joogtaan qofka muslimka qofka Soomaaliga meel kasta aad joogto waxaan idin ka codsanaynaa inaad si kasto aad nagu taageertaan oo aan barnaamijkaanayto Farjanno Primary School aan u dhisno run ahaantiina waa barnaamij ay soo abaabuleen dadka deegaanka Caabudwaaq meel kale wax ka helayaan ma ahan haddii aan soo koobo waxaa weeyaan iska wax u qabsan weeyaan waxaan idin ka codsanaynaa insha Allah in aad nagarab istaagto iska wax u qabsanayto haddana insha Allah walaalahay Soomaaliyeed ee qurbaha joogo waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah in uu idinku adag yahay Soomaaliga so intii aan eri baan soo yara koobaya waxaan ku soo koobaya luqadda Ingiriiska insha Allah Assalamu alaikum, greetings. This is Abdiwali Mohammed speaking to you from Caabudwaaq district in Galgaduud, Somalia. I'm here today to be part of the celebration and the groundbreaking of Farjanno Primary Mosque and a conference hall. For those of you who know me, I migrated to the United States at the age of 14. For the last 26 years, I have been living in Seattle, Washington. And about a year and a half ago, I was approached by several youth that hail from this region in Galgaduud, who have brought to my attention IDPs, internally displaced people that are living here in the Caabudwaaq district. To my left is the district commissioner of the Farjanno neighborhood in Caabudwaaq. He has brought to my attention that about 2016 there were about 421 families that lost all of their livestock. They have made here a home, and in this area there is no school, there is no clinic, there is no mosque, and other social services things. On top of the 421 families, there are additional 200 families that were living here that didn't also had school. The closest school is about 4 to 5 kilometers. The closest masjid or mosque is about the same distance. So it is really very hard for the kids to walk, 4 to 5 miles. So if I was to go back to how this program came, is that several youth that actually studied here but were studying in Kenya approached me and said, Abdiwali, we would like your assistance to help us with to build a school, a conference hall, and a masjid in Caabudwaaq, especially at the Farjanno district. At the beginning, I thought it would be easy. I thought the easiest thing to do was to contribute. But after talking to them for several months, I came to realize that contribution only will not really help build Farjanno. So I've decided to be part of the committee of Farjanno, and unfortunately I was selected to be the vice chair of the Farjanno building project. On a personal note, I have 3 young kids that live in the USA. God bless, they have the opportunity to get all the social services they need, whether it is a great elementary school, a great tutoring school, a great soccer program, and additional services. But for me, is deep inside, I felt guilty. I felt guilty that a child at the same age as my son Jibril,
my daughter Safa and my daughter Marwa doesn't have the opportunity to attend a school or get even Quranic lessons. So I took the challenge and made it personal to help the 621 families that are living here to make this possible. So I hope that this message reaches you in health and prosperity, and I hope that you will partake the fundraising efforts to build Farjano Primary School. Thank you. gudoomiyaha guddiga Farjano ee Caabudwaaq Awil Catoosh nabadoon bedel jaamac shidane oo ka mid ah golaha guurtida Caabudwaaq iyo Yurub Ismaan oo ka mid ah haweenka kaamka Farjano ayaa u mahad ceshay qof kasta oo qayb ku lahaa ka qayb qaadashada dhismaha laga dhagax dhigay Farjano ee ka kooban dugsi hoose dhexe masaajid dugsi quraan iyo hol shirarka ah. waxaan kaloo codsanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo cid kasta oo jecel ilbaxnimada iyo horumarka aadanaha inay gacan ka geysato sidii marxaladan halka aan joogno maanta aan hore uga sii socon lahayn waxa la joogaa dhagax dhig faano la farakamo qodna ayaa la yiri marka waxaan u baahanahay iskuulkii sidii loo dhameystiri lahaa cid kasta oo gacan nagu siinaysa inay ka qayb qaadato sababtoo ah hawshu waa bilow waxa loo baahan yahay dhameystirkii fasalladii in iskuulkii shaqeeyo oo hirgalo marka taasina waa inaga codsi mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa qurba joogta oo uu nagala joogo walaalkeen Cabdiweli oo aad iyo aad hawshan isku hawlay say ku hirgeli lahayd waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo hawsha juhdi gelisay oo wax ka qabatay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxa kale jira waa mashruuc weyn ummadaasna waa laga soo sheekeeyo intay meesha deganayd iyo siday ahayd iyo waxay u baahnayd iyo inay helin baahidoodii hadda ka hor waa laga soo sheekeeyay wixii laga soo sheekeeyay ku noqon maayo waxaan hadda codsi u dirayaa wali hawshii dhagax dhig bay joogtaa waa hawl ballaaran weeye raggii awal dadaalka iyo juhdiga geliyay waxaan leeyahay oo Cabdiweli nagala joogo ama guddiga Caabudwaaq wali hawshii waa socotaa dadaal dheer si galiya ilaa aad ka gungaartaan waxaan degan halkan 5 sano dadku idil weeyla degan idbi baan nahay 5 sano deganahay ururkooyinka halka ka muuqdo waxa weey carruurooda waxbarasho la'aan bay ku seegeen inta waxaan u deganeen waxa weey waxbarasho inaan heer aan helno inta waxaan u soo gaarnay meeshan aan u deganeen ilmo yar yar oo hadda inta la eego waxa weey aan waxbarasho haystaan garan ka dhaan dhibaatada ay leedahay marka aniga qaas ahaan hadda aniga markaan soo qaaday 8 ba ii joogto 8 hal mid oo iskuul aada ma jiro waxaana keenay ana qaasho ma hayo awood aan kaga bixiyo ayaguna waxa weey agoonna way ahaayeen waxaan kaga bixiyana ma aanan awoodeedina ma aanan lahayn ay ka qayb qaataan wixii hadda ka bacdin ay ka soo qayb qaataan kan hore u gal inuu hadda hore u soo galo ka qayb qaato gudoomiyihii hore ee arrimaha bulshada maamulka Caabudwaaq Muuse Maxamed Axmed Muuse Inji ayaa ugu dambeyntii goobta dhagax dhiga ka hadlay goobjoogna waxa dhacdooyinkii uu soo maray deegaanka kan ee Farjano 2016 ilaa hadda baahidiisana ay caddahay in badanna loo ololeeyay maadaama uu dhibiisku ku yaala koona kamid ah degmada Caabudwaaq oo xaafad yahay hadeer oo loo yaqaano Farjano village ilmo yar iyo dad miyig ku noolaan jiray oo yimidna halka kan ay isku ay degeen saadaradeed ay u baahan yihiin wax kasta oo bulshada u baahan tahay caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo iyo daryeel iyo amni intaba saadaradeed ka bacdi bulshada markii la abaabulay oo dhaxdeeda iska abaabuleen oo meeshan waxa jira mataqaana IDBska dad bay ku soo degan hore u deganaa inkastoo meeshu ballaaratay ka bacdi waxay u baahatay baahida waxay keentay in loo hormariyo baahiyaha asaasiga oo ugu horeeyo waxbarashada saadaradeed guddi iskugu jira qurba joog iyo deegaanka ayaa waxay abaabuleen in mataqaana deegaanka waxbarasho loo helo saadaradeed maantayto waxaan dhex taaganahay iskuulka hoose ee Farjano oo ay abaabuleen guddi iskugu jira nooc kasta ha lahaadeen marka Allah mahadale aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa guddiga midnimo Farjano oo maaragtay asagu abaabulay inay dugsiga kan halkaan laga sameeyo oo uu hogaaminayo hadda qurba joogta Cabdiweli dugsiga kan uu hirgalo annaguna waan uga mahad celinaynaa waana hirgelinaynaa qaybtana waa qaadanaynaa qurba joogtana waxaan leenahay saad ugu talagalay sida doorkad ka qaateen ka qaata guddigii wadayna hawshiina laba ayaa la Cabdullaahi Jaamac Home Cable TV Caabudwaaq.